sida la socotaba waxa soo qaadanay waxa loo yaqaano ku dhex jirnay cashar ka horeeyay waxaan kusoo gudbinay hadda ka horeeyay grade 12 ka chemistry isla sharaxayna functional group ka labada cashar isku xigaan marka soo dhawaada waa Mahad Salaad Maxamed waa bara Mahad Salaad Maxamuud barnaamij su'aalo kala socoteen casharada dugsiga sare biology chemistry physics ka goobaha kala ah bara YouTube ka channel ka leeyahay barnaamij iyo Facebook page ka barnaamij iyo gaar ahaan user-ka barnaamij iyo blogyada barnaamij blogspot.com iyo barnaamij maana.com iyo loo yaqaan hillacademy.blogspot.com iyo hillacademy@youtube channel waxa meelaha soo dhan duu ilaahay iyo Twitter ka dhamaan ama Google ha iskaga qorto barnaamij duu ilaahay Somali biology Somali chemistry ku raadiso iyo Somali physics maanta cashirku noo socday lessons ka chapter grade ka 12 chemistry chapter 2 giisa ayaan sharaxaynay oo functional groups ka ah functional groups ka cashirkan ka koreeyay daqiiqado ka hor waxa dubnay labadan ayaan ku qaadanay labadan marka way bixin wax loo yaqaan waan bixinay labadaas cashir waxa it concept waxa sharaxay wax loo yaqaan labadooda way naga bixin oo waan sharaxnay waxaan noo haray meelo yar yar ayaa noo haray labada cashir way bixin aan bilaabeynaa ama sharaxada cashirkan clipka yarka video ku fiirinayna laba isku dhijinayna ku sheegay laba sharaxaynay labadan ayaan hadda sharaxayna duulahay aldehydes and ketones aldehydes and ketones waxaan ka bar doonaa ama yoolka buugeena dan kugu celiyo buugeena waa kana waxaan mareynaa dad ila socotaba waxa loo yaqaano page-ka 29 page-ka 29 markaan ka baxnay waxaan sharaxay oo alcohol ku sharaxay ilaa page-ka waxa tagaysa aldehyde page-kan saddex page aan sharaxnay cashirka hore hadda waxaan ku sharaxaynaa page-ka 30 aldehydes kan ka bilaabeynaa ketone ku dareena aldehydes ketone isku dareena marka duulahay waxa waaye labadooda isku qaban doonaa waana sharaxi doonaa buugga marka space male no space maadaama space u salahayn ciladan ay jirto waxaan sameynaynaa inaan buuga kala ka sharaxno buug kala ka sharxi doonaa laakiin hadafka ma cashirka yoolkiisa aan isla fiirino sida hadda video-ga hore ku arkaysan cashirka hore yoolku wuxuu ahaa inaan identify ku sameeyno lixdan functional group oo buug qoraayo marka mid kaste functional group kiisa nuucu yahay qaabku iyo ku base garaysan yahay aan fiirino asaamihiisa iyo qeexidiisa uu leeyahay haddana qodobka labaad labada yool ee casharada ka baranayna inaan magacaabi karno sawiri karno draw and name inaan ku sameeyo marka basic ma ahay reactionadoodii iyo qaabkay u falgalayeen iyo application koodii iyo waxyaabahaas oo dhan adaa laga rabaa inaad si raacdo si sharaxdo laakiin qaybta basic ayaan isla sharaxayn haduu ilaahay waxaan ku daarinay waxa yiraahdaa aldehyde and ketones bidkaan soo qaadanayna buugaan soo qaadanayna insha Allah haduu ilaahay aldehyde and ketones ka aan sameeynaa aan isla sameyn doonaa qaabkan waxaan ku baran doonaa objectives kan carbonyl group ka koobiin name aldehydes and ketones waa qodob kamid qodob badan iyo properties of aldehydes and ketones labadan qodob aan ka baran doonaa some common aldehydes ka ketone ujeeda oxidation qaabka uu sameeyo reduction qaabka uu sameeyo addition hadii lagu daro waxyaabahaas oo adaa waxa laga rabaa inaad si samar garay karto ama si aqri karto yoolka ama chapter goals ka si aqri karto insha Allah aan leenahay marka qaybtan oo adan ku xasuusiyaba markale in this the next chapter ku xiga wuxuu leeyahay buugaani waxaan ku qaadan doonaa families of compounds oo ka kooban carbonyl group waa arki doonaa carbonyl group has a carbon atom and oxygen atom connected to the double bond dhammaan wixii carbon and oxygen double bond isku dhagan waxa lagu magacaabaa carbonyl group waa kuwana ka farcamay marka hadda aan sheegayni ayaa ka farcamay aldehyde ketonki qaabkoodii waa kan waa oxygen oo carbon double ku haysta kana carbon double ku haysta marka qaabkaas ay uga farcamayaan kuwaas maxaa kamid ah the two simplest families of carbonyl compounds are the subject of this chapter ka waxa laga hadlaa aldehyde and ketone in aldehyde the carbonyl group is bonded to the least hydrogen bond ay ku dhigi karta saanu noqon karaa a group and common abbreviation ka loo soo gaabiyana qaabka falls at the end of molecule and ketone kana carbonyl group is bonded to carbon atoms waa kana laba carbon atom oo kana haysta kana at least hal carbon iyo hydrogen waa inuu qabsadaa qaabka loo yaqaan
okay qaabkaas ayaa ku sharxi doonaa labadooda qeexitaankooda iyo qaabkooda maadaama carbonyl group ay kamid yihiin ama ka farcamaan carbonyl compound maxaa lahaa any compound waa that contains carbon double bond to oxygen ka kooban ayaa la yiraahdaa carbonyl group hadana functional group waa hasa carbon atom joined to oxygen atom double bond si kala hadii lagu sheego qaabka ay noqonaysaa carbonyl group kuwa carbonyl group ka oo dhammaan hoos imaanayo carbon ka qaado doona laakiin maxaa kamid ah some kinds of carbonyl group ka kuwa agramna anaga waxa aldehyde waa kana structure kiisi ama general formula hadaad aragto arto waxay u taagan tahay third chain ama silsilad ay u taagan tahay qaabka intaan kana arto marka ka tagtana waa formulas inta carbon oo kasto ku qaabili kara intaan waa kaasa tusaalaha waa kana hal carbon methane lagu dhijiyay so magaca loo yaqaan as a common waa acetate methane laakiin waxaan arki doonaa waxa loo yaqaano inaan magac kale u bixino ketone-kana waa kana labadaas r ayaa labada dhinac uga dhagan oo arta faraca asalka ah qaabka noqona acetone magacyada waa common laakiin magacyo qaar carboxylic acid iyo ester oo labada kale oo ayagana dhiman oo nooga dhiman functional group ka qaadanayna qaabka marayna carbonyl group lagu magacaaba carboxylic kan waa carboxylic acid iyo ester kana qaabkaas uu sharaxi doona oo macnaha afartaanba waxa la isku dhahaa carbonyl group la isku dhahaa halka hydroxyl group oo kamid yahay alcoholkii waxa loo yaqaan oo kamid ah marka nagu soo celi meeshani qaabka kalena oo jeeda nidaamkaas hadii halkan partial negative iyo partial positive waa markii polar iyo polar la carbonyl group oo dhan meesha ay leeyihiin ama waxyaabo ay ka farcamaan ayuu meesha si fiican uga hadlay nag muhiimadan waxa waaye labadan qodob oo soconaa aldehyde a compound that has a carbon group bond to the list of carbon كمعناها aldehyde maxaa la yiraahdaa in isla qeexi karnaa la rabaa aldehyde waa compound has a carbonyl group kamid ah dabarkana ugu yaraan hal hydrogen qabsan kara oxygen ku ketone maxaa la yiraahdaa waa ketone qaabka u jeedin structure kii formula ku qoran waa compound that has carbonyl group kamid yahay dabarka wuxuu ku qabsan karaa two carbon in organic bonds hadii carbonyl yiraahdo oxygen ka macnaha oo double carbon ku kaasmo ku karo macnaheedu waa kuwan labadooda tusaalooda in halkaas kale war kale iyo galay qaybtan sare laakiin tusaalahooda waa kana waxa loo yaqaan aldehyde iyo ketone for example aldehyde iyo ketone waxa uu marka magacaabina mid roo gareynayna ayaan arki doonaa waxaad ogsoonaanaysaa waxa loo yaqaano sifooyinka marka halkaas uga baxno iyo qaabka naming aldehyde and ketone soo qabano waxaan leeyahay the simplest aldehydes are now the common names magacyadooda loo yaqaan kuwa which end in aldehyde ka bilaw for example formaldehyde acetaldehyde iyo benzylaldehyde the name aldehyde systematically Arabic name system the final e are the name of the alkene ay macnaha ugu taaganta within the same number carbons are replaced by al ayaa loogu daragadaa and three carbon aldehyde derived from the propane so is named systematically propanal alkeenka markuu sameynayo oo silsilad la sameynayo ama alkeen uu ku dhago waxa al ayaa daba marinayna propane ay silsilada ahayd haday noo noqoto aldehyde waxaan leenahay propanal carbon 4 haduu yahay butanal ayaa leenahay so when substitute a present markii set chain oo xaadir yahay the chain number beginning with a number of the carbonyl carbon waxaan ka bilaabaynaa waa number gareynayna anagoo numberka bilaabayna carbonyl groupka carbonyl carbonka oxygen numberka ku dhagan illustrated below for methyl butanol ayaa gadaal lagu okay qaabkaas ayaan u sheegaynaa tusaale methyl butanol ayuu ku dhagan waa kana magaca caanka iska leeyahay kuwi korna lagu sheegaa most simple ketones are best ayagana hoos tusaale ku qaado doona kuwa ugu caansan ayagana waxaa la siiyaa ketone ayaa gadaal looga daro for example methyl ethyl ketone show the below an exception ay jiro oo sharcigaas waa waxyaabaha common in system oo kala qaadayna keto exception waxa way of this common name chain is seen to be similar to ketone kuwa ugu fudud acetone ayaa la yiraahdaa wixii lamid ketones are named systematically by replacing the phenyl A
da ugu dambayso ayaa lagu bedelayaa alkeenka da ugu dambayso own u bixinayna own ama one saa u taqaanigo inkastoo own loogu dhawaaqayo one ah loogu dhawaaqayna. The numbering of the alkane chain begins to the end nearest carbonyl group. In number gareeyo waxay ka bilaabanaysaa macna waxa loo yaqaan chain begins at the end of nearest carbonyl group. Laba carbonyl ku dhigana midka ugu dambeeyo ayay ka bilaabanaysaa. I show here for 2 pentaone. The location of the carbonyl group is indicated by placing the number of the carbonyl carbon. Boosku wuxuu ku tusinayaa locationkiisa carbonyl groupka numberka meesha la dhig front of the name. Using nomenclature gene acetone could be named waxaan ku magacaabi karnaa 2 probanoate waa kana ketoniska acetone al dhahay waxa loo yaqaano labo ay silsilad saddex waaye silsilada saddexna marka labaad looga dhigaya 2 probanoate jida. Okay, magacan kale waxa lahaa methyl ethyl ketone marka uu common name yahay IUPAC name ama systematic name marka uu bixinayna silsilada 3 2 3 4 meesha u dhow yahay marka kasta uu tirinayna 2 butanoone adena own uu bixinayna. Okay, silsilada 1 2 3 4 5 ay noqotay 2 pentaone cyclohexaone asagana 6 waay meesha uu dhegan yahay oo sameeyay. ورمالنا قابك naming in السلفانك لكن تسأله أسكسي قادم وعلى naming a ketone giving this structure ketone بالعمق عنه give both systematic IUPAC name common name مقع عن كاي common name دوني ذي صلاة قاندات كأن كميسر وقونين إيه قانان مقع systematic IUPAC إذا كميسر يورب يعني لبضبو على جارة على ليسكا كامبون كأنكو سمين إسكيتون هرتا إنه كيتون يوم حكو تسنى وسينكل carbonyl group bounded to alkyl group. لبا alkyl group أو carbonyl group ودقن واي ethyl group مركوا left ودقن هاي and propyl وحلو يقانا لنا عرائد كو ودقن. So the IUPAC system identifies a number carbon to indicate where the carbonyl group هنا number قرينو say chain كفيرينو longest parent chain كفيرينو سابقا يعابي كرنا systematic مركالين. Counting the direction that gives the carbonyl group at the lowest number of possible. مش لو carbonyl group كل جين هتقبل على سنة بركة أوجد 1 E2 E3 into 1 E2 E3 E4 ونقنا مجدو. أوكي هالكابل لو The common name uses the name of the 2 alkyl groups. 2 alkyl groups كم يسوى عنك بس كيستعمله لكن هذا ترينو وحلو يقانو نحنقنا IUPAC name ك نحنقنا 3 لحصة معهن انتو قد جين سدح سوقات 3 hexaone ايو نقنيس. The common name كانوا حنقول كرا انت محاوقة دقن ايثان انت محاوقة دقن انت محاوقة دقن كاربون كانوا كتير اساقا انت ايثان اوقة دقن اوكي انت افر سدح اوقة دقن 1 2 3 اساقوا على قريبا متكس محاو نقول المكا ايثان بروبيل كيتون معناها لبلبا ومقعابي كرتا مرة حواي سيرتينيسكا waxa ku dhigan caadi magacyada u bixi oo alkeenki aha ketone gadaal wada marna sida IUPAC-na caadi waa IUPAC system ka name ka chemistry-yaasha isla yaqaan adigana lagu baray waa kana common name ka meel kasta ku qoran yahay in isku keen kartaa laga yaabo. Droga markaan ka hadlayno droga oo iska soo qaatay anaga noo dhiibay droga wax kala maahan waa drug structure oo corresponding to following nameska inaan sawir karno wax loo yaqaan hadaan soo qaadano kan aan soo qaadano alka maxay ahayd waa aldehyde waaye kan muxuu noo noqonayaa wax loo yaqaan labadan waa aldehyde labadan maxay noo noqonayaa ketone noo noqonayaa. So haddaan rabno inaan maadadan sawirno ketonka labadan maad mid kamid ah ama mid hoos qaado mid sare qaado ama tanba noo qaado horta ko silsiladu maxay noqonayaa waa inaan sawirno wax loo yaqaano methyl hal carbon hore ka marinayna تدرى بوتيل كيتون علينا نمبر كأفراد أيوه وح كل جن وحلو يقانو كربونيل جروب لنا عكذا لنا حكي أفر مركا هل كربون كهرمرني أفر كربون كذا مرني كربون كوحلو يقانو أفراد لنا عزمك كصوت رسنا وحقوبيني وحقوسيني سا كربون كوجود تشيني قاب كذا والله بدو بس كم قاب استركشر كذا ما مجعب دودا قاب كاس أيام معناها كم عابي كرنا ودرو جري كرنا. مرة هذا نبوق قابك وغراني من دروين قابك واحد قاعدة سولية كتون كذا فوق دار ما دام بوك سوكتي
naamka tusaale markaan ka magacaabayno horena waa kuugu sheegay halkaa buu uga dhagan yahay labada dhinac uga dhagan waxaan leenahay marka saddex carbon waayo barbona own aan leenahay name the following structure ka hadda kana naloo diray kan marka naloo diray adoo buuga fiirin inta methane uga dhigan intan dhinacana uga dhigan so numberka inta uu dhow yahay waxaan leenahay inta 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waa 7 uga dhigan marka qaar saasal isku dara waxaan leenahay to hebtaano hebtaa own aan leenahay markii horena uu noo kala saaray oo labada dhinac ayuu noo kala saaray inuu midba magac diray marka marba midba magac waa uu sii kartaa markii caadiga laga hadlayo oo methyl hebtaa methane to inta ugu dhijiso tiray to methane oo hebtaanoid waa dhihi kartaa laakiin pentanoid waa iska dhihi kartaa oo markaa silsilada dhan sheegto numberka ugu dhagan magaciisa waa sheegi kartaa marka draw gareynayso oo hadda draw lagu qaabka draw waxa lagu yiri 3 pentanoid meesha 2 pentanoid ka sawir 5 carbon aad taxanaysa 5 carbon inta ugu dhagan numberka saddexaad ugu dhagan خلاص qaabka u sawiraysa sawirkiisa soo waxa waa it's so easy oo aan adkeen weeye haduu ilaahay marka qaabkaas waxaan ku soo gabagabeynay casharkeeni aan labada xabo isku dhijinayni oo ahaa aldehyde iyo ketone properties iyo qaabkooda waa aragno kalba haduu ilaahay qaabkan marka waxaan ku baranay labadan qodob ayaan ku soo qulaaseynay labadan qodob ayaan ku qulaaseynay labada qodob waxaan dhiman ila soco labadan qodob ayaan galeynaa oo leeyahay organic acid iyo ester carboxylic acid iyo ester ayaan hadda galeynaa haduu ilaahay macashirka kan xiga kan midka ku sii xiga haduu ilaahay qaabkaas ayaan galeynaa waxaan isla sharaxaynay chapterkii waxaan ku dhex jirnay grade 12ka chemistry-ga chapter 2ga functional group-ka concept yar ama qaabka ugu kooban ee lagu sharxi karo ayaan soo qaadanay casharkii hore waxaan ku soo sharaxnay alcohol iyo etherka mid kasta waxaan ka fiirinaynay hadafkeena oo inta ayaan ka qaadanaynay hadafyadiina oo waxa ay wax loo yaqaano inaan sameeyno ama qaabkan aan sameeyno wax loo yaqaano buga inaan bugeena ama ku isticmaalayno maadaama buga oo size ku daadsan yahay inaan inta york raacno inaan kala aqoonsano horta ko inaan lixdooda kala aqoonsano functional group kooda oo yihiin labo qodobka labaad inaan magacaabi karno darow garay karno mid kasto kamid ah halka marka buu advance lagu jira oo heerka si baxsan u jira 10 kala aan duubi doono oo gooni oo la bixi doono way jira laakiin haduu ilaahay ina basically buugaad ku bisgareynayna marka 10 ku fahansanayna taas ugu insha Allah alcohol iyo etherka waa ka soo baxna aldehyde iyo ketone kan halkaas aan ku gabagabeeyna carboxylic acid labadan hadda isla duubi rabnaa 10 kan ku xiga ama video kan ku xiga ama lesson ku xiga ayuu noqonaa oo saddexaad marka functional group ka chapter 2 waxaan ka diyaarinay 3 cashar ayaan ka diyaarinay hal cashar daahasho casharada kale ay ka raadso channelka bara emiriso Facebook si automatically ugu xiray YouTube-ka bara emiriso page kale yiraahdo ka raadsado ilaahayno waa isticmaal Salad Maxamuud oo ina leh meel kasta ay joogtiin si kasta ila socotiinba Soomaali nabad adu ilaahay nabad iyo barwaaqo dheer ayaan inay rajeynaa Soomaaliya ha israacdo guul iyo barwaaqo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.